shirka dastuurka ee arrimaha xuquuqda aadamiga ah ee cutubka labaad ee dastuurka ka doodistiisa ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka dastuurka, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran, ururada naafada iyo qaybo kale oo bulshada. agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Maxamed Abuukar Subeer ayaa sharaxay xuquuqda aadamiga iyo cutubka labaad ee dastuurka. wuxuu ku soo aaday xilli oo wasaaradda arrimaha dastuurka wasiirkeeda wasiir deeqa ay ku guuleysatay muddo sanawaad ka bacdi in ay ansixiso ama ay iyadoo matalaysa xukuumadda federaalka Soomaaliya ama jamhuuriyadda guud ahaan ay saxiixdo heshiiskii caalamiga ahaa ee xuquuqda dadka naafada ah ama dadka baahiyooyinka gaarka ah qaba. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Xaliimo Yari ayaa ka hadashay ahamiyadda xuquuqda naafada iyo nuqulka guddiga doorashada oo dhammaan xeerarka kale oo dhan ay ka soo farcamayaan. xeerka doorashooyinka, xeerka sharciga xisbiyada, xeerka nidaamiyaasha kala duwan ee guddigu uu soo saari doono waxay kulli ku soo aruurayaan oo laga tixraacaya oo laga soo aruurinaa qodobka 11 ee dastuurka ee xarfadiisa 1 2 3 4 ay sheegayso haddii aad fiirisiin. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasiin ayaa ka hadashay dadaalada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee hirgelinta xuquuqda insaanka ee muwaadinka Soomaaliyeed in la xaqiijiyo xuquuqdiisa. arrimaha muhiimka ah ee ah xuquuqda aasaasiga, xuquuqda ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed, taasoo haddii si wanaagsan la faguro, loo dib u eegis loogu suubiyo xuquuqdaas ay muwaadin kasta oo Soomaali ah uu iska arko. wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa xusay in ilaalinta xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ee ku dhameystirka dastuurka ay tahay mid muhiim u ah mujtamaca Soomaaliyeed in la helo xuquuqda rasmiga ah ee muwaadinka. haddaad u fiirsato haddaad akhriso dastuuriyaasha adduunka ka jira waa la soo horumariyaa xuquuqda insaanka, waa laga soo horumariyaa waxyaalaha kale, waxyaalaha siyaasadda waa laga soo horumariyaa. sababta uu cutubka labaad u yahayna taas waa waxaa la horumarinayaa xuquuqda bini'aadanka inay tahay muqadas inay tahay. shirka dastuurka ee arrimaha xuquuqul aadamiga oo ka socday magaalada Muqdisho oo soo xiray wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed la xiriiray qodobadii ka soo baxay shirkaasi. afhayeenka wasaaradda dastuurka Cabdicasiis Xaaji Goobdoon ayaa qodobadaasi akhriyay. lahaanshaha dastuurka waa heshiis bulsho oo saldhig u ah habka dowladnimada Soomaaliya. 2 xuquuq dastuurku waa kan ilaaliya xuquuqda muwaadiniinta xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed, asteeyana waajibaadka muwaadinka. 3 wada dhamaasho dastuurku waa in uu noqdaa mid ay ka wada qayb qaataan bulshada Soomaaliyeed laguna ilaaliyo dhamaanshaha matalaadda siyaasadeed iyo maamul iyadoo si gaar ah loo tixgelinayo dadka xuquuqdoonka ah sida dadka naafada ah, haweenka, caruurta, barakacayaasha iyo dadka aan matalaadda siyaasadeed lahayn. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasiin ayaa xustay in la dhaqan geliyo qodobada shirka ee la xiriiray ansixinta sharciga naafada iyo xuquuqda muwaadin kasta in la cadeeyo ee Soomaaliyeed. waxaa horta sideedaba dowlad loo yahay ummadeeda. markaan arrimaha aan xuquuq markaan ka hadlaynana waxa waaye dadka maaragtay naafada oo kale intaas soo sakraay. runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa sabarkii aad soo yeelateen, isla markaasna niyadiina mar walba ay heer sare tahay oo aad madaxdiina dhinacna ku gobaabinaysiin, dhinacna aad leedihiin xuquuqdeena yaa maqan. wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa xusay in ahmiyad uu ku fadhiyo qodobka dastuurka ee xuquuqda aadamiga si ay iskaga arkaan muwaadiniinta oo dhan, ahmiyad gaarna u leeyahay dadka qaba baahiyada gaarka. wasaaradda waxay iyadoo la kaashanayso prime ministerka ra-iisul wasaare xasan khayre waxay soo saxiixday xeerka caalamiga ahaa oo mataqaanaa xuquuqda dadka naafada ah Oktoobar 2 New York soo saxiixday
kaasna waxaan noqonay dowladdii 178 oo saxiixda. shirka oo socday muddo dhowr cishaa ayaa ahmiyadda lagu saarayay xuquuqda dadka qaba baahiyada gaarka ah iyo qodobka dastuurka ee xuquuqda aadamiga.